magta asal ahaan waxaa asal u ah oo shariicadeennu asal uga dhigtay geela. magta bini aadamka geela asal u ah. lacag ma aha, lo'na ma aha, adhina ma aha, digaagna ma aha. geel baa asal u ah. sidaas daraaddeed dadka magta iskale waxay xaq u leeyihiin inay dhahaan geelii oo socda noo soo istaajiya. hadday halkaa qabsadaanna lagama leexin karo, waa in geelii loo soo istaajiyo. haddii ay noqoto inay tanaasulaan oo laga heshiiyo inay qiimo qaataanna, qiimaha suuqa maalinka uu geelu ka joogo ayaa loogu qiimaynaya. ma jiro wax la yidhaahdo xeer baa inoo yaalla inaynu hashiiba intaa ku qiimaysanno oo qiimo aan suuqa ka jirin ah, soo ma? oo qabaa'ishu ay ku heshiiyaan. waa sharci kale oo sharciga ilaahay garab socda oo la dejiyey oo xaaraam ah oo qaanuun wasakha ah. waana dulmi. dulmigaasi ninkii dejiyey iyo ninka ku dhaqmayana shaki ma laha ilaahay inuu la xisaabtami doono. waa in la zuuliyo. xaq way waxaan dad baa iska leh, ama geelisiiya ama suuqa uga qiimeeyo maalinkaa wuxuu suuqa ka joogo siiya. markii la qiimeeyo oo intaa lagu qiimeeyo wixii ka dambeeya ayagaa xaqu leh waxay ka tanaasulayaan. ayagaa loo bandhigo alla yidhaahdo maxaad ka tanaasulaysaan, maxaad raalli ku tihiin, maxaad ogoshihiin. waxay ka tanaasulaan marka xaq bay u leeyihin. waa goorma? hadday wada qaangaadh yihiin. hadday ku jiraan dad aan qaangaadh ahayn waxba kama tanaasuli karaan. ninka qaangaadhkaanba wax ka tanaasuli kara. amaa agoonta aan qaangaadhka ahayn ninna xoolahooda ugama tanaasuli karo, iyaguna khiyaaray kaga tanaasulaan male. masaladaasi marka sidaas weeye. dhaqamada soomaalida khariban ee shareecada aad u khilaafsan bayna ka mid tahay. in la baabi'iyana u baahan dadka in lagu dulmiyo qiimaynta geela oo la yidhaahdo waxaasaan isku ogeyniyo. maxay tahay 5,000 maxay tahay 5,000 muxuu ahay nirigta xalay dhalatay yaaban qiimaha jooginba baa laga hadlaya. marka waxa weeye waa uun si farsamaysan dadka loo dulmiyo waay. nacam.